السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك. maanta waxa weeyaan waa bil Ramadaan, waxa weeyaan waa Ramadaan kowdeedii 1445. hadda muuqaalka duubna waxa weeyaan waa abbaaro casar shantii iyo dhowr daqiiqo. maanta insha Allah tacaala waxaan jeclahay in la wadaago xadiis aad u muhiim. xadiiskaasi waa xadiis Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegay qofka waxaa sameeya in soonkiisu macno ku fadhiyo ama soonkiisu laga aqbaliyo. waa maxay waxaas? Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay man lam yadac, qofka iska dayn waayo qawla zuur, inuu been ku hadlo oo been yani hadalkiisa inta u baahan noqdo, walcamala bih, iyo weliba inuu qowlka iyo hadalka uu hadlay ku camal falo, falaysa lillahi xaaja. الله سبحانه وتعالى مباهنا أن يدع طعامه وشرابه ويسكدايو ويدي سعيه بالليس والإيه صومك لو يتلقى القفك إنه يسكدايو وينتظر يبيع ويبيع، لكن وإن أي صومان أمان حبنا قفك بني آدم بقوية. حديث كاسب أكته وقرنا يوم هو إذا قبلنتي صحابك إذا قرنا هو إذا قبلنتي وموجرا وحدك naarta wejiyadooda ugu diday on carabyadooda ahayd. marka qofku waxa uu ku hadlayo aad iyo aad iyo aad iyo aad inuu iskaga ilaaliyo weyn. bisha Ramadaan waa bil isbedel, qof walba muslim waxaa laga rabaa isbedel aad iyo aad u weyn oo sanadkii hore iyo sanadkan inay wax badan iska bedelaan. tan kale inuu wadaago ama afkeena waxaan ka orayno aan ka warhayno dikrigaan badino subxaan allah alxamdulilah walaa ilaaha ila allah. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.